على العز سرنا نخوض القتال لأجل الهدى دين رب الجلال. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، وبعد. إخوتي في العقيدة، إلا مصابي ملاك الرونتي سينسو مغالله إلهي سبحانه وتعالى قرآن كوحينا قلت المامية فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. ربي سبحانه وتعالى في سورة الأعراف وحاو قلت المامية نبي عليه الصلاة والسلام سوى أمر يا فاقصص القصص ضدك تاريخ ذا وغشي كيبا إلهي سبحانه وتعالى. maxaa taariikhda laynoogaga sheekaynaya? ilaahay wuxuu leeyahy subxaanaه wa tacaala lacallahum yatafakkaruun. waxa ay mudan yihiin in ay fakeraan. yacni taariikhdu waa wax lagu cibro qaato. laqad kaana fii qasasihim cibrat liuli اlalbaab. aayad kale alle subxaanaه wa tacaala wuxuu ku leeyahay qisaska ummadaha ee laydinka warramaya waxaa ku jirta wax ku qaadasho, laakiin waxay ugu jirtaa baa ilaahay leeyahay dadka caqliga u saaxiibka ah. waxa aan ka warrami doonnaa maanta qayb ka mida qisooyinkii dunida ka dhacay kuwii ugu cajabta badnaa. taariikhda bini aadamkaa dhacdooyinkaan tilmaami doonno horena looguma arag, dibna looguma arag bay tilmaamayaan. sidaa awgeed baa taariikhyahan muslim oo casrigaasi noolaa oo weliba qayb ka mida noolaaya aan wada noolayn, ibnulahir, waxaynu ka soo qaadan doonnaa bal erayo uu qorayo ibnulahir fii kaamilih. ibnulahir waa nin taariikhyahan oo muslima, wuxuu noolaa casrigii tataarka, laakiin wuxuu noolaa qaybtii hore ee dowla alkhawaarzimiya iyo duminteedii, xataa ma soo gaadhin baqdaad iyo shaam iyo wixii ka dambeeyey o dhan. wuxuu geeriyooday baan filayaa 630kii hijriyada. wuxuu leeyahay ibnulahir mudda ayay igu qaadatay inaan taariikhdan qoro iyo inaan iska daayo, muddaan joojiyey inaanan qorin buu leeyahy. kadib markii in badan layga codsaday inaan wax ka qoro ayaan isku dayey buu leeyahy inaan qoro. dabeetana wuxuu odhanayaa dhacdada tataarku xaadithatu tataar min alxawaadith alcudma والمصائب الكبرى التي عقمت الدهور عن مثلها عمت الخلائق وخصت المسلمين. wuxuu odhanayaa dhacdada tataarka ku saabsani waa dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee dunidaba lagu arka buu yidhi. waa masaa'ibta waaweyn bay ka mid tahay. waa masiibo dunidoo dhan haleeshay buu leeyahy, khalaa'iqdoo dhan ku dhacday, muslimkana gaar ku sii noqotay. waxaan odhan karaa buu yidhi hadduu mid yidhaahdo ilaahay dunida sidii uu u abuuray tanoo kale hore ugama dhicin, dibna uga dhici mayso, xataa haddii la yidhaahdo buu yidhi ninkaasi run buu sheegaya. waayo buu yidhi dajaalku dadka inta raacdabaa buu dayn doonaa buu yidhi, laakiin kuwani inba may sii daynin. dhacdada tani waa dhacdo runtii ilaa xad yaa badan. gebagabadeedii imaam soo gaadhayna waa ibnu taymiya oo isna ka warramayo sawiraya. wakhtiga oo kookooban daraaddeed waxaan isku dayayaa qaybo ka mid ah dhacdada tan inaan tilmaamo.
dhacdadani waxay ku saabsiisan tahay niman tataar la yidhaahdo oo dunida weeraray. tataarku waa waddankan yar ee hadda mongolia la yidhaahdo qabiil degi jiray. mongolia muddo aad u yar ayay waxay ku qabsadeen bariga dunidoo dhan. wakhti aad u kooban bay waxay qabsadeen laga soo bilaabo jabaan iyo jina ilaa iyo Poland inta ka dhexlay qabsadeen. waa jabaan iyo jina laga soo bilaabo oo caalamul islaami la soo dhex maro oo Russia oo dhan 27 milyan bay leeyihiin kilometer square oo Russia la dul maro oo Ukraine la maro oo Poland la maro oo Majar la maro Hungary oo Croatia la maro Slovenia la maro oo Bahrul Adrian Talyaaniga dhinaciisa ay istaagaan. taariikhda bini aadamka wax sidaa intuu wax u weeraro intaa wakhti yar ku qabta lama arag bay leeyihin. dhacdada tan waxa aan rabaa inaan uga waranno inaynu baranno wax ka baranno. waxaynu ka baranaynana waxa ugu horeeya inaynu fahamno nidaaga rabbaaniga ee ah waa la jabay inaanu muslimku marnaba isku dhiibin. ilaahay qur-aanka wuxuu ku leeyahay walaa tahinuu walaa taxzanuu waantum laclawna in kuntum mu'miniin. ha niyad jabina baa ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala. ha baraq jabina, ha niyad jabina oo ha murugoonnina haddaa mu'min tihiin idinkaa koraynaya baa ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala. dhacdada tan waxaan uga warramaynaa markaasi ma aha nacyiga muslimiinta ama geeridii muslimiinta inaan idiin sheego oo dabeetana dadka qalbiga inay wada madoobaato. wax qalbiga madoobaynayaan ka warramayaa, laakiin waxaan uga warramayaa in la garto haddii la kufo in la kici karo. taa haddii aan ka warramayo laga soo kacay waxa suurtagala wax ka dambeeyo dhanna in laga kici karo. taariikhdan markaan ka warrami doona waa qarnigii 7 ee hijriga. qarnigii 7 ee hijriyada bilowgeedii weliba. haddaan suurad kooban ka bixinno dhacdadan dad aad u tiro badan baa ka warramay, qoraallo aad u tiro badanna waa laga qoray. laakiin waxaan isku dayayaa mulakhas ka mid ah kitaabkan uu qoray doctor Raghib Sarjani 100 bayje ugu horreeya inaan maanta tijaabin karo. dunida wakhtiga aan ka warramayno laba xoog baa ka jiray. marka hore xoog waa caalamul islaami oo ka bilaabma China galbeedkiisa ilaa iyo Spain inta ka dhex leh oo muslim haystaan. China galbeedkiisa Yurub maxaa la yidhaahdaa Aasiada dhexe oo dhan, Middle East intan la yidhaahdo, Afrikada waqooyi ilaa iyo laga gaadhayo Spain inta ka dhex leh. intaa waxaa haystay dowladdii weyneyd ee islaamiga ahayd. waa dhul aad u ballaadhan, dad aad u tiro badanay degan yahay, awood aad u tiro badan leh, aqoontii bini aadamkee waagaa taallayna hoggaaminaya marka xagga cilmiga laga eego. laakiin waxa dhankaa u raacda dhanka siyaasadda ayaa mugdi weyni ka jiray. waxay ahaayeen ummad kala qaybsan oo is-haysata oo aan isbixinaynin ood gobolba gobolka ku xiga weerarku joogto u yahay. gobolba gobolka ku xiga weerarku joogto uu yahay. ummaddaas siyaasadda sidan u liidatay sidan loo soo hungurayn doonaa wakhti yar ka hor guulo waaweyn bay dunida ka muujisay. dagaaladii muslimka iyo crusadeskii reer galbeedka qoladoodii kristanka waday u dhaxeeyey waa
wakhti yar baa ka soo wareegayba markuu salaaxuddiin guulaystay. salaaxuddiin alayuubi 583 hijriyada bay ahayd markii uu macrakatu xatiin dhigay, ama macrakatul arak markuu isbeeni ay ku soo jebinayeen qoladii kale dawla almuraabita mise muwaaxidiintii. laakiin waxaynu in yar ku arki doonnaa iyadoo aad xaqiiqsan doonto ilaaha qur-aanka ku leh subxaanahu wa tacaala wa tilka alayaamu nudaawiluhaa bayna annaas. dunida baa ilaahay leeyay waa maalmo aan dadka isugu warwareejinayo. qul illaahuma maalika almulk tu'ti almulka man tashaa wa tanzicu almulka miman tashaa wa tucizu man tashaa wa tudillu man tashaa. waxaynu arki doonnaa rabbi cidduu doono inuu kor yeelo, cidduu doono sharfo, cidduu doonana dumiyo. wakhtigaasi waxaa dunida ka talinayay caalamka islaamiga ah khilaafo lo odhan jiray alkhilaafa alcabaasiya. khilaafa alcabaasiya 500 iyo dheeraad sanay markaa jirta. 132 bay bilaabantay oo dawla lamawiya ay baaba'day. kuwanina caasimadooda waxaa la qabsan doonaa 656. 520 sano waxa ayay dawladda tani jirtay. laakiin wakhtiga kan waxay joogtay wakhti boqorku in yar uu ka taliyo ama uu ku dhadhow yahay boqoradda ingiriiska oo kale, iska magacuun uu yahay, laakiin imaarado waddanku uu kala googo'o, imaarad walba boqor ku horkaajo, wuxuu doonana uu ka yeelo, ta ku xigtana ay isku duulaan, madaxduna ay ka fakerto un kursigaa sidii u xejisan lahaa iyo ilmihiisa siduu u dhaxal siin lahaa iyo reerkiisa yare uu ka tirsan yahay si ay dadka kale lacagta uga guri lahaayeen. khilaafa alcabaasiya qaabkaasay u ekay. dowladdii muslimiinta ee masar iyo shaam waa suuriya, urdun, falastiin, dhulkaas iminka, iyo xijaas oo ah xarameynka iyo inta ku beegan, iyo yaman, iyaguna kamay wadci fiicnayn. salaaxaddiin alayuubi isagaa intan isku qabtay oo dowlad weyn oo islaamiya ka sameeyey, laakiin markuu dhintay dhashiisii iyo tarantii uu ka tegay baa isqabsatay. dabeetana waa la qaybsaday, ninba gobol yar buu gaar u goostay, iyana waa kala daadatay. weliba wakhtigaa waxaa kaloo socda alxamla asaliibiya alkhaamisa wixii la odhan jiray, dagaaladii crusadesku wadeen. dagaalkii 5aad baa markaa socda oo dimyaatiya waa markay qabsadeen masar, qayb ka mida ay soo qabsadeen, oo iyagoo meesha dagaalku uu ka socdo uu dhintayna boqorkii ugu dambeeyey markaa ayuubiyiinta ugu xoog badnaa ee masar markaasi xukumay jiray, almelik alcaadil. galbeedka haddaynu u soo kacno libiya laga bilaabo ilaa andalus, dawla almuwaxidiin oo iyana iska liidata ayaa markaa ka jirtay. gaar ahaan dagaalkii alciqaab lo odhan jiray ee ka dhacay andalus markii lagu jabiyey wixii ka dambeeyey. waxaa jirta dawlad kale oo weyn oo muslimiintu ay lahaayeen oo khawaarzam lo odhan jiray, addawla alkhawaarzamiya. dowladda khawaarzamiyiintu waxay ka talin jirtay duwalkan istaanada la yidhaahdo, turkmanistan, khasakhistan, afghanistan, bakistan, waxaa istaan oo dhan isku soo dar, eeraanna ku dar, intaas bay ka talin jireen. dawla alkhawaarzamiya waa dowlad gudaheeda makaa'id badan iyo isa suldaar badan uu ka jiray. dawla alcabaasiya colaad badan la gashay, salaajaqadii ruumin badan la dagaalantay, salaajaqadii yacni atraagta asalkooda ee muslimiinta ahaa. suuraddan kooban waxaan rabaa un inaan idinka tusiyo sidii u ekaa caalamulislaamigu. waxaa jirtay indiya, waxaa ka talin jiray iyana dowlad islaamiya alghoriyiin lo odhan jiray. faris qayb ka midi waa bershiya, qayb ka midi dawla alkhawaarzamiya bay hoos tegi jirtay. dacal yar oo sokana waxaa ka talin jiray niman lo odhan jiray ismaaciiliyiin. ismaaciiliya waa firqo shiicada sheegata, culamo badanina gaalaysiiso. waa firqo waagaa hore
madaxnimada aad u jeclayd oo aad u ilaashan jirtay dagaalyahan ahayd dhallinyaradeeda si xooggan u tababari jirtay ku caanbaxday iqhtiyaalaadka caalamulislaami madaxda la laynaya waxa la laynaya iyaga khaarijin jiray farsamadaas iyagaa farsamo yaqaano ku ahaa oo iyagaa la kala adeegsan jiray inay waxaas isticmaalaan rag badan oo duwalkii islaamiga ee waaweynaa ka tirsanaana way laayeen oo qaar intay suufi isaga dhigeen u tageen oo waxay sii weydiisanayeen midi geliyeen qaarba si ay ku dileen anadol markaynu eegno waa turkiga dowlad asalaajiqa la odhan jiray baa ka telinaysay oo muslima oo alab arsalaan qaa'idkii weynaa ee muslimkii la odhan jiray dowlad ka tafiirantay markaan cumuuman eego caalamulislaami wuu ballaadhnaa dowlado tiro badanina way ka jireen laakiin xaalkooda wuxuu ahaa uun kuwo isdilaya oo kooxiba kooxda ku xigta ay ku maqan tahay oo aan isbixinaynin xooggii labaad ee dunida ka jiray wuxuu ahaa xooggii reer yurub gaar ahaan 4 dowladood ee imikaba caanka ah faransiiska ingiriiska talyaaniga iyo jarmalka afartaasaa hogaaminayay yurub laba dowladood oo Spain iyo Portugiiska oo markaa iyana jabiyay muslimiinta iyo xooggan baa markaa iyana jiray marka la eego caalamulislaami qaybtiisa waqooyi imaarado yaryar oo dhul ay qabsadeen kristanku crusadeski oo dowlado yaryar oo kristana ka jiray sida Beirut ama Sida ama Akka ama Antakiya kuwaasoo dhambe waxay ahayd dowlado yaryar oo iyana masiixiyiina oo meelahaasi ka dhisnaa dowladahan reer galbeed mooyaane waxaa jirtay kiniisadii bariga oo markaasi deganayd dowlal byzantiya la odhan jiray romanski byzantiyiinta la odhan jiray oo kiniisadan Russia iyo Greega iyo dhankani haystaan ahaan jirtay oo markaa magaaladan Istanbul la yidhaahda haysatay oo halkaasi fadhiisinkeeda u ahaa waxaa kaloo jiray dowlado yaryar oo iyana waxoogaa laaleeg oo maalan dowlat alkurj kurjigu waa Georgia meesha nimka la yidhaahdo ama se Armenia iyana dowlado yaroo kristan ay ka jiray imaaraad yaroo saliibiya intaasi waxay ahayd caalamkii labadii xoog ee isku hayay sidii ay u yaaleen mar qura ayaa waxaa soo baxay dowlad cusub oo taariikhdii dunida bedeshay oo xoogagii dunida bedeshay oo muddo yar iyadu ku noqotay ad-dawla al-kubra ama aan idhaahdo al-qutb al-waxiid dowladda qura dunida ka jirta cid kale oo jirta aanay aqbalin waa dowladdii la odhan jiray mongolianska ama tatar ereyga tatar iyo mongolian taarikhyahanadu waa ku murmaan keebaa kee dhalay keebaa weyn keebaa yar taarikhyahanada badh مثلا رشيد الدين الوزير كتاب كيسي لو رجل جامع التواريخ يساقو حقبا تتاركو إنا يهين شعبة من المقول منغوليا نسكا الرسمي قال تتاركو قبيل كم يدبو قبا مركا هلكا الراغب السرجاني يو تاريخي هنبا دارنا عكس قول دقيان oo ay ka dhigayaan mogoolku inuu asalka yahay tataarka iyo tarkiga iyo waxa kan qabaa'il badan oo kale inay markaa ka tirsan yihiin ala kullin labadan qabiiliyagaaba markii hore istilay tataarka iyo mongolian isku iyaga istilay dowladnimo isku haysteen akhiiran waxa uu soo baxay nin boqoroo cusub oo la yidhaahdo Genghis Khan boqorka cusub magaca la baxay magaca qaar waxay ku tarjumaan waa naanays waa sidii kaysar iyo magaca noocaas iyo kala waxay ku tarjumaanba kuwa wax tarjumaa waa qaahiru dunya iyo amiir alcaalam iyo wax la nooca dunida ninkii ugu sareeyay isaga magaciisa rasmiga Temujin baa la odhan jiray Temujin ninkan la yiraahdo wuxuu ahaa marka la eego nin qaa'ida oo haliyeeya oo ciidan hogaamiya wuxuu kaloo ahaa baa la yidhaahdaa abaabule bulsheed nin dadka kicin kara oo dad badani ku xidhnaan karaan
wuxuu kaloo ahaa manaxe aan digigaxan haddii la maranayo mongolia maalan markuu qabsanayay qabaa'ilku markay isdilayeen dagaalladu galay reer buu intuu jebiyey ayuu wuxuu yidhi madaxda qabta wixii madaxoo dhan inta la soo qabtay 70 ka mida nolosha igu kariya buu yidhi iyagoo nool baa la kariyey yacni ninka madaxdee sidaa u fakaraya buu ahaa waa mongolia gudaheeda markuu qabaa'ilku isdilayeen uu boqortooyadan u qabsan doono intuu qabtay buu 70 ka mida yidhi ha la kariyo iyagoo nool dheriga ha lagu rido ha karsamaan wuxuu ahaa nin dagaalyahana qaa'ida oo dad hoggaamin karo ururin kara manaxa aan digigaxan ah oo agtiisa naxariisoolina Temujin agoonnimuu ku koray bay yidhaahdaan isagoo yar baa aabihii la dilay reerahooda labay hoofsaday mar dambuu soo lufluftay waxa kan akhiiran boqorkaasuu dhoqday Temujin wuxuu isku dayay inuu boqortooyo fiican samaysto wuxuu ku guulaystay markaa inuu qabsado waddankii mongolia la yidhaahdo dabeetana boqortooyadii chinesku ku durkay boqorradii chinesku iyana jebiyey china oo dhan buu qabsaday bari buu u socday ilaa kuuriyuu tegey inta ka dhexle kor buu u socday ilaa siberiyuu qabsaday siberia ilaa kuuriya dowla alkhawaarzimiya dhinaceeda ilaa iyo china dhinaciisa dambe dowlad weyn oo intaa leeg buu samaystay oo aad u ballaadhan dowladdiisaas waxa uu u samaystay nidaam adag wuxuu u sameeyey distoor la yidhaahdo alyaasiq aw ilyaasik distoorkani wuxuu ahaa diimihii dunida yaallay ayuu midba wax ka soo qaadqaatay dabeetana intuu isku dhafdhaftay ayuu dhaqankoodii iyo hiddahoodiina wax ka mida ku dhaftay waa sidan dasaatiirtan iminka dunida taalloo kale diimaha iyo wax inta isku qasqasto wax dhisata yahuudiyada inbuu ka qaatay kristan inbuu ka qaatay islaamka inbuu ka soo qaatay dhaqankii qabiilkoodii iyo wixii xeerarkay lahaayeen qayb buu ka qaatay waxa intuu isu geeyey ayuu yaasiqa u bixiyey kaasuu ku xukumay nidaam adagoo saarim ah maamul aad u adagoo idaariya buu waddanka u sameeyey wuxuu ku caanbaxay waxay yidhaahdaan dagaalyahanadiisu iyo dagaalladu qaadi jiray waxay caan ku ahaayeen weerarka degdegta ah waxa la yidhaahdo yacni waxaa la yidhaahdaa fardaha leedday ku fuuli jireen baa la yidhaahdaa si loo fudaydiyo farasku aanu wax culaysa u dareemin dabeetana wuxuu lahaan jiray baa la yidhahaa kumaankum ciidan ah oo fardaha leedda ku fuula oo ka dagaalami kara kumaankum mayl in ku dhadhow marka waxay dhahaan alxarb alkhaatifa waxaan maraykanku iminka yidhaahdo xuruub khaatifka ee laga gaadhsiiye meesha la dumiyo taas buu isticmaali jiray baa la yidhaha wuxuu lahaa nidaam kala dambayn oo aad u adag wuxuu ciidankiisa ku tababaray duruufta qaasiga ah inay aqbalaan good training baa la siiyey ah nolol rafaada inay aqbali karaan wuxuu kaloo samaystay hoggaamiyeyaal askareed military jananno ah oo dunida caan ka noqday rag waaweyn bato biiji holaako yacni waa qaa'id la wada yaqaan bayden waa quwaaddii uu lahaan jiray ninka kani waxay ahayn dagaalyahano aad ugu caanbaxay dagaallada wuxuu aaminsanaa bay yidhaheen mabda'a alqutb alwaaxid aqtaab badan inaanay dunida ka jirin dunida in nin qura ka taliyo dadku dunida joogaana inay ninkaa ka dambeeyaan waxyaabuhu caanka ku ahaa waxa ka mida bay yidhaahdaan ballanka ma aqoon baa la yidhi hadduu cid dawlada heshiis la galo inuu la gala iyo inaanu la galin qiimo badan uma kala dhexaynin sideedaba ragga xoogga waaweyne ballanka ma jecla haddii aan aakhiro qofku aanu ka baqaynin iyo rabbaa ku xisaabiyo qiyaamaa jira iyo waa la isqabsanayaa sideedaba ninka xoogga weyni ballanka marmarsiiyo uma waayo lagu buriyo waxaan isku dayayaa markaa galabta inaan soo bandhigo haddii ay suurtowdo burburkii dawla alkhawaarzimiya iyo si uga takhallusay
xaguu ku socday filosofigiisu muxuu ahaa ma khilaafada cabaasiyiintu marka hore ku socday sidaa waa la sheegaa laakiin waxa macruufa uun ninka kani si kasta uu u fakerayay dowlad xooggan baa dhinaciisa iyana jirtay الدولة الخوارزمية والدولة دي حكومي جرتي أفغانستان أوزبكستان تركمانستان كازاخستان طاجكستان باكستان هي قيب إيران كميدة انتاسو يسكو هيستي الدولة الخوارزمية ومسلمة عاصمة ديدون مقالة أورجندا الله يراهدو أورجندا تركمانستان بيكو تالي عاصمة أي هالكا واحد لبدا ودن وحكا دحيي حسن الجوار si nabadgelya in loo wada deganaado Genghis-Khan laftiisu bariga xasilintiisa iyo dawladdiisa dhisideedii ayuu mashquul ku ahaa China iyo de Korea iyo indha yaroo dhan inuu ka takhaluso laakiin waqtiyada ka mid ah unbaa waxaa dhacay waxaan laba filaynin isna marmarsiiyo u noqday waxaa dhacay dawladda al-Khawarizmiyya magaalo Otrar la yidhaahdo oo bariga ku taala xagga China u dhow ninkii xaakimka haystay labada dawladood maadaama heshiiskani uu jiray tijaarada ayaa si fiican ugu kala socotay baac mushtarka mari jiray xaakimkaas wuxuu qabtay tijaar Mongolianisa tijaar Mongolkii ka mid ah ama Tatarkii ka mid ah dabeetana tijaartii oo dhan bulaayay waa ballan furiyo sida u taala taariikhyahanadu sababo badan bay sheegaan qaar baa idhaa jawaasiis bay hayaan qaar baa idhaa may isagaaba cid hoosta ka laysa u soo diray waxaasi waa iska mala awaalo qaar baa idhaa radin baa jirtay oo marka hore iyagu wax boobeen dabeetana waa loogu abaalguday waxaasoo dhan waa wax iska qaldan bale waxaan odhan karnaa waxay khilaafsantayba xadiidkii nebigu abu daawuud xadiidka warinayay sheekh al-Albani xasan ku tilmaamayo ee uu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam دعوا الحبش ما ودعوكم واتركوا الترك ما تركوكم وحديث حسن ونبي كالسوغان نبي عليه الصلاة والسلام ورحبشيدا اسكدا يا انت ايدين دينيسو حبشيدو انت ايدين ديسو ايدين اسكدا يا وحكى له النبي حديث كاسي كنت المامي دتك تركي الله يدا اما تركي الله يدا هذا تركي هو قبائل كان بري قودا من عيدي كسو جيدين مركز ما ها تراكتنا قودا ataraagtani asalkii iyana xaggaasay ka yimaadeen taariikhyahanadu waxay dhahaan kuwan oo dhami tarkigaasay ku jiraan atruku tarka ma tarakuukum ma dhicin Genghis-Khan waraaq buu soo diray uu boqortooyadii Khawaarizm Maxamed ibn al-Khawaarizm shaah ninkii la odhan jiray madaxda ka ahaa uu soo diray isagoo la nimankii laayay tujaarta gacanta halayga soo geliyo boqorkan qaybta muslimka haystaana wuxuu yidhi maya annaga maxkamadaynayna haddii ay jirto xagga iyagaa lagu maxkamadaynaya waa sida taariikhyahanada qaar sheegaan dabeetana umay cuntamin Genghis-Khan wuxuu yidhi cid buu soo diray wuxuu yidhi hala soo dhiibo boqorkii xaggan haystayna boqor dhul badan qabsaday oo laftiisa aan isbidistu ku yarayn buu ahaa ninkii uu soo dirayba wuxuu yidhi isagana hala dilo awal waxaa la isku haystay rag tujaaroo la laayay oo halay keeno iyo halka ha lagu xukumaa la isku hayay oo tii Afghanistan oo kale dabeetana waxaa la yidhi maye kiina wuu dilay Genghis-Khan marka kan wuxuu u diyaar garoobay markaa dagaal waa iclaan xarb labadii dawladood dagaal baa loo diyaar garoobay Genghis-Khan ciidan aad u tiro badan buu soo kaxaystay Maxamed ibn Khwarizm Shah ninkan la yidhaahday dawladda tan xukumaana isna ciidan buu soo urursaday magaaladii Arjanda wuu ka yimi isna barigu soo kacay laba ciidan oo aad u tiro badan baa la iskala hor yimi waxa la isugu yimi webiga Siixoon taariikhyahanada muslimku ay yidhaahdaan Sardaria qolada kalena ay ku tilmaamto waa dawladdan Kazakhstan la yidhaahdo dhex mara
goobtaasaa labadii ciidan isugu yimaadeen dagaal adag baa dhex maray muslimiinta oo qura 20,000 baa ka geeriyooday baa la yidhaahdaa dagaalka kan 20,000 oo muslima ayaa lagu waayey tataarka ama mongolianiskana waxaa la yidhahdaa in ka badan ayaa iyagana ka dhimatay 4 maalmood baa la isjafayey oo dagaalkani socday dabeetana markii uu dagaalku adkaaday ayaa dib loo kala yaro gurtay labadii ciidan dhimashadii baa ku badatay dhaawacii baa ku tiro batay dib baa loo kala gurtay wakhtigii dib loo kala yaro baxay ayuu boqorkii moxamed ibnu khawaarzim shaah wuxuu u fakeray fikrad qaldan taktiik qaldan ragga badhna waxay yidhahdaan akhlaaqiyan qaldan oo ah inuu insixaab sameeyo goobta inuu ka guuro dabeetana cawaasimta magaalooyinka waaweyn inuu ciidamada dhigto o ilaashado isaga iyo ciidankiisa inta ugu badanina caasimaddii inay ku noqdaan caasimaddii markaa galbeed waqooyo fog bay ka xigtaa meesha la isku dilaya waa ka durugsantay ciidankiisii dib buu ka haystay wuxuu kaloo ku tala galay inuu dee ciidamo kala soo urursado badsado laakiin waxaa jirta isaga iyo muslimka ay isugu dhow yihiin colaadaha dhex taagan iyagana khilaafa alcabaasiya xaggeeda ciidan kama helayo dowla salaajiqa waxba kama helayo gawriyiinta waxba kama soo helayo طaa'ifa alismaaciiliya waxba kama helayo hareerihiisa duwalka ka xiga la iskuma fiicna aطraafi dawla ciidamo saasiya kama soo helin waayo ciddii hareeraha ka xigta oo dhan waa la ishayey muslimku hadduu ishayana ilaahay qur-aanka wuxuu ku leeyahy walaa tanaasacuu fatafshaluu watadhaba riixukum waاصbiruu ina allaha maca asaabiriin rabbi wuxuu leeyahy subxaanaه wa tacaala ha isqabanina oo haddaad murantaan oo isqabataan oo nisaacu dhexdiinna ka dhaco waa fashilaysaan dowladnimadiinna iyo xooggiinnuna waa tegayaa baa ilaahay yidhi waصbiruu ina allaha maca asaabiriin baa ilaahay leeyahy bini aadam hadduu wax wadaago xagxagasho iyo isqabasho lama waayo laakiin ilaahay wuxuu leeyahay sabirka ogaada laba hadday isqabataba aan kala yaacnadu waxba ma tarto waa dhaqanka ilaa hadda muslimka dhex yaallaad mooddaa laba hadday isqabato wadaad iyo wabiinba isku dar laba wadaad hadday masaajid isku qabtaan waa la kala guuraantee cidda kalena maxaad u malayn wadaad iyo wabiinba isku daro dhaqanku wuxuu u yaallaa qaab ah haddii laba muranto in la kala yaaco caalamulislaami qaabkaasoo kale u yaallay bal inay iscaawiyaan daaye dagaallada tataarku marka ay yaro damaan iyagaa weerarka isku sii qaadi jiray midba ka kaluu is odhan jiray inta aad wax ka sii xoraysatid nebi moxamedna calayhi الsalaatu wasalaam axaadiista ka sugnaatay ee saxiixu muslimka ku taalla rabbi markuu wax weydiistay ilaahay wuxuu u ballan qaaday inaanu ummadda muslimiintaa cadow ka xoog bata oo bannaysta walow dunidoo dhamminaha isu tagtee inaan marnaba alla ku sallidaynin ilaa iyo inay iyagu yihiin kuwa isjafaya ee iniba inta kale gumaadaysa mooyaane waa xadiid nebi moxamed ka sugan calayhi الsalaatu wasalaam boqorkani wuxuu ka fekeray markaa carruurtiisii iyo reerihiisii iyo ciidankiisii iyo wixiisii inuu aad u ilaashado oo aan dhibta badani soo gaadhin haddii uu ciidamadii meeshii kala baxay jenkis khan maxaa laga rajaynayaa marka hadday u bilaabantay shaqadiisii rasmiga ahayd marka jenkis khan ciidamadiisii buu soo dareeriyey uzbekistan buu soo galay wuxuu yimi cawaasimta muslimiinta wakhtiga kan dunida magaalooyinka ugu waaweyn ah yacni taariikhdii hore marka la eego dowladahan reer galbeedka iyo caasimaadkoodu waa shalay shalay bayaanku odhanaya indiya goormuu tegayey ingiriisku
waa ku axad البريطانيين ka soo warramaya wuxuu yidhi magaalo ku taalla indiya muslimiintu markay xukumaysaya murshadabaad baa la yidhahdaa ayuu tegey markaasuu wuxuu soo diraya uu leeyahy murshadabaad baa ka weyn london kana dhaqaalo badan kaliba oday kaloo faransiisaa tegey markaasuu yidhi magaalaan tegey godadkii dahabkee dunida aad moodday inay iyada to lagu guray idan shalay ahayd baris iyo london iyo waxa kani cawaasimtii dunida wakhtigaa ugu waaweyneed kuwaasi muslimku degan yahay buu ahaa bukhaari markaa waxay ka mid ahayd magaalooyinka ugu waaweyn 616 hijiriyada markay maraysay ayuu ku sameeyey xisaar magaaladii buu la go'doomiyey magaalada waxaa jooga ciidan badan oo ninkii kaga tegey ciidamadii uu qaybqaybinayo meelahan kaga tegay ciidan badan baa jooga